markii 6 ciyaarood isdaba joogta uu kala baxay garoonka guuleys daba jooga yaa 6 ciyaarood isdaba joogta sidan uu eeg yahay sidan uu dhuuban yahay soo ku guuleystay 6 ciyaarood isdaba jooga waliba isagoo soo dhuuban ma dhici kartee waxaan ku leeyahay daawada stage I got you ana kaaga dhacay qisadiisa oo dhameystiran ninkan soo dhuuban waxa lagu magacaabaa Sean O'Malley yaa qiimaha garanaya isuu ku guuleystay 6 ciyaarood isdaba jooga nafaansi balsaybo daawasho wacan muuqaalka dhameystiran sug laakiin inta muuqaalka bilaaban dib u fadhiiso koobkaaga shaaha soo qabso channelka subscribe saar video like saar waa inoo videoga iyo dhamadkiisa ka warta 6 ciyaarood ee ku guuleystay ma ahayn ciyaaraha UFC da waaweyn ee waa ciyaaraha legacy inta uu ciyaarayna waxa isha ku hayay Dana White oo ah maamulaha shirkadda weyn ee UFC marka uu arkay awoodda wiilkan yar uu leeyahay waxa uu ku marti qaaday barnaamijkiisa usbuuclaha ah ee Dana White Contender Series Sean O'Malley markuu soo yimid markaska weyn ee UFC waxa uu la yaabay markii uu arkay kaaraha weyn ee reer Cameroon Francis Ngannou waxauna inta kadibna waxa uu soo galay ciyaartiisii koobaad ee Contender Series waliba isagoo uu joogo maamulaha shirkadda UFC ee Dana White meeshana wuxuu ka dhigay wacdar la yaab leh runtii taasoo ku kaliftay inuu fadhiga uga kaco Dana White wareersi laga qaaday waxa uu sheegay inuu Sean O'Malley u rabo inuu ku soo I'm looking for somebody who has that thing. What is that thing? Sean O'Malley is that thing. He's the guy. taariikhdu markay ahayd 2017 bishii December 1 ayay ahayd maalintii uu soo xarooday UFC galayna dagaalkiisii koobaad Sean O'Malley 3 round oo uu ahaa gacanta sareeya ugu dambeyntii waxa uu ku guuleystay amar uu bixiyay garsoorihii ciyaartaas maamulay 4 bilood kadib ayuu haddana ku soo noqday dagaalkii waxayna isbalansaneen laacibka kale lagu magacaabo Andre Sokomas xeerarka UFC dana waxa ugu horeysay marka koobaad in labada laacib ay tartamayaan ay is-inda saaraan yacni indhaha u gali kadibna dagaalka la iskugu yimaado labadii round ee ugu horeysay oo Sean O'Malley uu ahaa gacanta sareeya waxaa la soo gudboonaaday ama waxaa soo waajahay roundigii saddexaad dhamadkeeda yacni injury isagoona haddana isdhiibin saa darteedna roundigii saddexaad marka uu dhamaaday waxa uu ku guuleystay Sean O'Malley go'aan ka yimid garsoorayaasha maadaama isagu labadii round ee ugu horeysay uu gacan sareeyay Love you, Joe Rogan. Love you too, buddy. sabab la xiriira dhaawaca soo gaaray Sean O'Malley waxa uu ka maqnaaday garoomada UFC da 2 sano oo dhameystiran haddana isla soo noqoshadiisii waxa uu bilaabay silsiladii lagu yaqaanay ee darbadaha xoogga waaweyn 3 bilood kadib Sean O'Malley waxa uu waajahay qaraarkiisii nolosha ugu dhibka badnaa inta uu UFC da ku dhex jiray isagoo faraha la galay legendka UFC da Eddie Weyland laakiin waxa la yaab ka noqday ayaa ahaa in Sean O'Malley roundkii koobaad uu u diray Eddie Weyland duni kale oo inaan garanin sidaasna recordkiisu waxa uu ku noqday 12 guulood oo isdaba taxan oo lahayn hal khasaare dhinaca kalena waxaa jiray laacib kale oo u soo diray Sean O'Malley hanjabaado uu ku weeraray Sean O'Malley sidaa darteedna waxa la isku ballamiyay labadii laacib waana Sean O'Malley laacibkan soo kacaya versus ninka kale oo dhashay Ecuador Marlon Vera Sean O'Malley soo ugu jeesto ayaa waxa uu madaxa soo marsaday calanka Ecuador Sean O'Malley roundigii koowaad waxa uu ku bilaabay awood xoog leh laakiin roundiga inta lagu dhex jiray O'Malley waa uu kufay si uuna ka saahayn kufitaankaasna waxa uu sababay in uu dhaawac la kulmo la yaab leh Marlon Vera waxa uu noqday mid ka faa'iideysta dhaawaca soo gaaray Sean O'Malley markii ugu dambeysay uu kufay Sean O'Malley Marlon Vera waxa uu soo gabagabeeyay ciyaarta xaggan ayayna ahayd markuu Sean O'Malley kala kulmay khasaaradiisii koobaad inta uu ku jiray UFC da Sean O'Malley waxa uu iska dhaadhiciyay inayna taasi ahayn guul darro paper I'm 12-1 I lost August 15th and in my head I'm 12-0 I didn't lose Sean O'Malley si uga soo kabta khasaarihii ka soo gaaray kulankiisii ugu dambeeyay waxay ahayd markii uu ku soo noqday dagaalada
March sanadkiina soo dhaafay ee 2021 isagoo loo ballamiyay mid ka mid ah kuwa ugu halista badan UFC ee miisaanka fudud ninka reer Brazil ee lagu magacaabo Thomas Almeida. Bruce Bufferna marka uu bilaabayay ciyaarta waxa uu sheegay in Sean O'Malley uu haysto 12 gool iyo 1 gool darro, laakiin Sean O'Malley waxa uu yidhi waa 12 guulood oo kaliya laakiin bila khasaare ah. Laakiin markii ciyaartii la bilaabay round 1kii markii la bilaabayna Sean O'Malley roundigii koobaad ayaa waxa uu dhulka la galay ninkii reer Brazil, laakiin isagoo istusaya dadka qamcahana taagaya ayaa waxa ka lumay fursadii ahayd inuu ugu sii dhameeyo. saasna waxa ciyaarta kusoo noqday ninkii reer Brazil ahaa, wuxuuna sii waday ilaa roundigii labaad. laakiin roundigii labaad Sean O'Malley waxa uu soo dhameeyay soona afjaray ciyaartii, waxa uuna fariin u diray dadkii ka shakiisnaa in Sean O'Malley laga badin doono. There was a big storyline coming into this fight. A lot of smart people. I thought were smart. We're talking about you just gotta kick his legs. Like I'm not an elite level striker. Like I haven't had 30 some fights. Yeah, I gotta prove a lot of stupid people that they're stupid. It was nice. Love you, Joe Rogan. I love you too, Sean O'Malley. muuqaalkeena maantana intaas ayuu ka eegyahay. fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, haddaad horey noola sii joogtayna waad mahadsan tahay, laakiin muuqaalka like saar, iskuna day ugu yaraan inaad gaarsiisid 1 qof. waad ku mahadsan tahay. waxaan idinkaga tegay inta muuqaalka xiga ku kulmi doono. Peace.